anigu waxaan ku koray Sacuudiga ku koray Sacuudiga markii aan ku korayna waxaan hayn dad cizad leh oo xitaa Soomaaliga waxaan garanayaa qofka waxaan looga sheekeyn jiray odayaasha Soomaalida taabiciidaha maqaaxida loogu keeno ayaa la oran jiray taabiciidii Sacuudiga qaado markaas oo jiray maanigoo Soomaaliya ayaa qaata jinsiyad Sacuudiya ma doonayo cizad halkaas ay naga joogtay شيخ الأورنجري سعد الغامدي شيخ سعد الغامدي حفظه الله قارئا أيها قريجي سيقول عسومي مر قريجي سيقول عسومي أيو يدي سعيد وما أنت وحن كو كرامدين ينكو شرفيا إن النف صوماليا بربريا كو صوقلي وإحنا نعسومي مركا وأصجع ويعسومي يمعلن كيس القرآن وعسومي ينكلو ليبيا وعسومي أفر بانونا معلن كيس القرآن ayaa wuxuu yiri ya Sheikh Saad hadii aad marba tiri ari Soomaaliya ayaa neef barbariyan Saciid u qoran ku karaamadeynaya fatwan ku haya culamadii Soomaaliya joogtay ay qoreen fatwada waxa ku taala Soomaali weydiinaysa culamadii Soomaaliya oo leh hadii aanu nahay dad Soomaaliyeed dadka Sacuudiga degan sadaqa ma loo qaadi karaa dadka Sacuudiga degan Sacuudiyiinta ay batroolka maanta ku cabaya tumbadaha sadaqa ma loo qaadi kara culamadii Soomaaliyeed baa la weydiiyay Masrigiiba wuxuu yiri Sheikh Saad wata xalka Soomaaliya kaas ahaan jireen sida rag sharaf leh oo qiimo leh dad qiimo leh ay ahaan jireen Saad al-Ghamidi markaa wuxuu yiri hadii aad taatiri ana mid baan ku sheegaya wuxuu yiri aniga aabahay oo nool maanta Saad al-Ghamidi aabihii oo nool wuxuu yiri wuxuu igu dhaartay inaan anako reer Maka ah oo khamiisyadu uskag nugu angdul angageen inaanu sugi jiray awrta ka timaada Soomaaliya doonida la soo saaray oo marka la arko awrtii Soomaaliya la oran jiray Allahu akbar sadaqa Soomaaliya nooga timi Saad al-Ghamidi wuxuu akhriya marka wa tilka al-ayaamu nudaawiluha bayna an-naas saasa adduunka loo wareejinaya buu yiri maantana Soomaalidii ayaan darro sadaqa loo urinaya Saad al-Ghamidi ugu yiri